maxaa laga filan karaa kulamada isimada SSC iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya maalinimadii shalay waxaa magaalada Muqdisho gaaray xubno ka tirsan isimada deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn oo ka kooban 5 xubnood xubnaha isimada Sool Sanaag iyo Cayn ayaa safarkoodu ka dambeeyay dhambaal martiqaad ah oo isimada Sool Sanaag iyo Cayn loo soo mariyay wasiirka wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya wasiir Jaamac Khaliif oo dhawaan safar ku yimid deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn haddaba dib u milicsano ka hor safarkan isimada Sool Sanaag iyo Cayn ee Muqdisho waxaa ka horeeyay isima ka soo kicitimay magaalada Muqdisho oo markaasi u kala dab qaadayay Laascaanood iyo Hargeysa si loo damiyo xiisada ka taagan duleedka magaalada Laascaanood isimada koonfurta Soomaaliya ayaa waqti badan ku qaatay magaalada Hargeysa ee maamulka Muuse Biixi warar hoose ayaana sheegaya in isimada koonfurta Soomaaliya ka soo kicitimay si weyn looga hor yimid soo jeedintoodii la xidhiidhay si nabad loo helo in maamulka Hargeysa maleeshiyaadkiisa uu dib uga qaado duleedka magaalada Laascaanood siiba godka Gooja Cadde kadibna waxaa xiriir soo sameeyay madaxweynaha geelaha Jabuuti kaasi oo la soo hadlay isimada nabad raadiska ee ka yimid koonfurta Soomaaliya kana dalbaday isimada reer Muqdisho inay ka gudbaan qodobka dib u qaadista maleeshiyaadka Muuse Biixi taasi bedelkeedana lagu casuumo isimada Sool Sanaag iyo Cayn magaalada Muqdisho si looga dhaadhiciyo inay u aqbalaan xal kale oo aysan markaasi ku jirin in ciidanka Soomaaliland dib looga qaado duleedka Laascaanood magdhow la xidhiidha khasaarihii dagaalka ka soo gaaray bulshada Sool Sanaag iyo Cayn lagana qaadayo maamulka Hargeysa kharashkaasi oo si wada jir ah ay u qaadaamayaan Muqdisho Hargeysa iyo Jabuuti iyo kaalmo kale oo laga helo beesha caalamka ayaa ku jirtay aragtidani oo loo bixiyay Gele Peace Vision ayaa muhiimadeedu ay tahay in isimada Sool Sanaag iyo Cayn loo soo bandhigo inay soo dhowdahay midnimo Soomaaliyeed oo maamulka la baxay Somaliland ay ka dhowdahay arintaasi taasi oo ay sheegeen in horjoogayaasha Hargeysa ay markaasi shuruud ka dhigeen in beelaha dega waqooyiga Soomaaliya oo aan habqan ku socon inay mar kale maamul konfederaal ah ay la sameeyaan koonfurta Soomaaliya aragtida Geele ayaa sanadkii la soo dhaafay markaasi la iskula soo qaaday magaalada Jabuuti xilli kulankii saddex geesoodka ee Xasan Sheekh geelaha Jabuuti iyo hogaamiyaha Hargeysa Muuse Biixi ay markaasi isugu qoorlaabeen shir hoosaad lagu qabtay magaalada Jabuuti haddaba ka hor intaanay isimada Sool Sanaag iyo Cayn gaareen magaalada Muqdisho bayaankii ka soo baxay madasha wadatashiga ee dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa qodobka khuseeyay qadiyada Sool Sanaag iyo Cayn iyo magaalada Laascaanood lagu sheegay in Laascaanood laga fuliyo xabad joojin aan wax shuruud ah ku xidhnayn arintani ayaa ahayd mid ka hor imaanaysay rabitaanka shacabka reer Sool Sanaag iyo Cayn iyo aragtida isimada oo salka markaasi ku haysay in xabad joojin iyo nabad aysan dhici doonin tan iyo inta maleeshiyaadka doolka ee maamulka Hargeysa ay dul fadhiyaan magaalada Laascaanood isla marhaantaasina xabadda ay ka soo ridayaan godka Gooja Cadde ay soo gaarayso magaalada Laascaanood haddaba arrintaas weydiinta leh ayaa waxay tahay isimada reer SSC maxay iyaga oo go'aanka Xasan Sheekh ee xabad joojinta bilaa shuruudda ah ay waqtiga badan ugu luminayaan kulan ay markaasi og yihiin maxsuulka ka soo baxaya inta la og yahay ilaa habeennimadii xalay waxa isimada Sool Sanaag iyo Cayn ay la galeen mas'uuliyiinta dowladda federaalka laba kulan oo laga ilaaliyay saxaafadda hay'adda nabad sugidda ee NISA ayaa aad markaasi uga howlgashay inaanay wax qishahay markaasi oo la xidhiidha xogta shirkaasi aysan bannaanka u soo bixin dhanka kalena jamaahiirta Sool Sanaag iyo Cayn iyo xoogaga xaqadurirka ee daraawiishta waxay ku jiraan heegan buuxa oo ay markaasi diiradda ku saarayaan dhaqdhaqaaqa godka Gooja Cadde ee dhufayska u ah maleeshiyaadka doolka ee Muuse Biixi waxaanay markaasi ka digtoon yihiin dhagaraha laga soo maleyn karo ama laga keeni karo hoyga Muuse iyo meelo kale